Where were you? Xagee jirteen? Waan goortii the Black Civil War dagaalkii Huma beginning oo bilaabanaya in Soomaaliya dalka Soomaaliya. I was in Mogadishu City. Waxaan joogay magaalada Muqdisho, especially qaas ahaan Medina District, magaalada degmada Medina. How was the situation of Mogadishu? Xaaladda Muqdisho siday ahayd at that time waqtigaasi? The mood of Mogadishu, xaaladda Muqdisho, very tense, aad bay u adkayd. The people dadkina were anxious about aad bay u walaacsanaayeen the outcome of natiijada ka imaanaysa, the outcome of the fighting, dagaalka natiijada ka imaanaysa, and everybody qof kastaba was afraid of oo ka cabsan jiray genocidal killing, dilka suuqyada ah. Did you normally stay at your house sida caadiga gurigaada ma joogtay oo rababa? Did you feel what you got from your house gurigaada as many people did sida dad badan ay sameeyeen naman? No, maya, I did not feel kama qahin gurigay from my house. I did not feel from my house marnaba kama guurin gurigayga. I stayed waan iska joogay my place goobtayda because maxaa yeelay I was afraid, waxaan ka cabsaday to meet inaan la kulmo thirst on I'm hungry iyo gaajo. As you know, sidaad og tahayba, there is waxaa jira Black Civil War dagaal xun in our country wadankeena. So sidaa daraadeed that dagaalkaasi, how can we stop san ka joojin karnaa that civil war dagaalkaasi xun and did san ku heli karnaa last in peace nabad waarta? I am sure waan hubaa if we repent to Allah, haddii aan Ilaahay u tooba keenno aan dayra aan ku dhigno to our precious religion, diinteena qaaliga ah, we can get waan heli karnaa lasting peace nabad waarta. But laakiin if we run off the western invaders sida gaalada garabtaaki amal, haddii aan u aroorno, we will be waxaan ahaan doonaa weligeen in this problem forever, weligeen dhibaatadaan ahaan